السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta barnaamijkeena qisadii guusha ku soo qaadanaynaa madaxii hore ee suuqgeynta u qaabilsanaa shirkadda Johnson & Johnson ninka lagu magacaabo Robert Taylor ka oo qorshe ganacsi oo cajiib ah uu degsaday kaga adkaaday dhammaan shirkadihii waaweynaa ee lacagta tirada badan lahaa dhan kalena soo saara waxyaabaha la isku qurxiyo qorshahaas oo ilaa maanta lagu dhigo kulliyadaha ganacsiga ee jaamacadaha caalamka. wuxuu dhashay Robert Taylor sanadkii 1935 wuxuuna shahaado master ah oo dhanka ganacsiga ah ka qaatay jaamacadda Stanford kadibna wuxuu madax suuqgeynta ka noqday shirkadda Johnson & Johnson. muddo ayuu Robert ku fadhiyay kursiga xafiiska suuqgeynta ee shirkadda Johnson & Johnson laakiin markii la soo gaaray sanadkii 1964 ayuu Robert go'aansaday inuu isaga tago shaqada shirkadda Johnson & Johnson. muddo yar kadibna wuxuu Robert aasaasay shirkad yar wuxuuna shirkadiisa cusub magac ugu dhigay Minnetonka Corporation. Robert ayaa shirkadani ku abuuray lacag lagu qiyaasay $3,000 wuxuuna xooga saaray inuu soo saaro waxyaabaha maqaarka bini'aadamka lagu qurxiyo gaar ahaan wuxuu yool ka dhigtay saabuunta waayo xilligaasi waxaa jirtay cabasho badan oo laga qabay saabuunta adag oo inta badan lagu qubaysto taas oo marka uu qofka ku mayranayo musqusha dhexdeeda kaga dhacayso. arrintaasi waxay aad u dhibtay dadka saabuunta adag ku mayrta kuwa oo jeclaan lahaa in la helo badiil kale oo ka wanaagsan saabuuntani adag. haddaba intaan wixii ka dambeeyay Robert ayaa la imaaday hal abuur cajiib ah oo mashaakilaad badan xalliyay ka oo ah farsamaynta saabuunta dareeraha ah laakiin saabuuntani horey ayay suuqa u taalay dhan kalena waxaa jiray qaabab badan oo loo isticmaalayay tirada yar ee saabuunta dareeraha ah ee xilligaasi jirtay laakiin Robert ayaa nooca cusub ee saabuuntiisa dareeraha ah u qaabeeyay qaab aan hore loo arag wuxuuna u bixiyay magac soo jiidasho leh ka oo ah soft soap saabuuntii jilicsanayd wuxuuna saabuuntiisa cusub ee dareeraha ah ku cabeeyay caag yar kadibna wuxuu ku soo fasaxay suuq xaafadeedka wuxuuna suuqani ku doortay in uu arko heerka ay gaarsiisan tahay baahida loo qabo saabuunta noocaani oo kale ah. Robert ayaa suuqii yaraa ee xaafadaha ku dhex yaalay kala kulmay wuxuusan filaynin waxaa maalmo yar gudaheed ku dhammaaday oo la iibsaday dhammaan saabuuntii dareeraha ahayd ee saarnayd iskafaalooyinka dukaanada dhan kalena macaamiishii cusbayd ayaa Robert ka codsatay in uu mar kale suuqa ku soo daadiyo saabuuntiisa cusub ee dareeraha ah ee maalmahan dambe aadka loo xiiseynayay. Robert ayaa markaani labaad galay diyaargarow ballaaran wuxuuna yool ka dhigtay inuu saabuuntiisa dareeraha ah uu gaarsiiyo dhammaan wilaayadka kale ee dalka Mareykanka laakiin Robert waxaa u soo baxday inta uusan tilaabadani labaad qaadin khatar weyn oo ku imaan karta mustaqbalka ganacsigiisa curdunka ah taas oo ah in shirkadaha waaweyn ee ka ganacsada waxyaabaha la isku qurxiyo sida Johnson & Johnson iyo Procter & Gamble ay suuqa si degdeg ah ku soo gali karaan kadibna kala wareegi karaan macaamiisha cusub halkaana ku baabi'i karo hamiga Robert dhan kalena shaqo la'aan ku dhici karto. runtii arrintani oo kale horey ayay u dhacday oo shakhsiyaad badan ayaa xaaladani oo kale qabsatay kadibna stress iyo dhiikar ku dhacay oo ayagoo xanuunsan dhan kalena faramaran deyn badanna lagu leeyahay suuqa ka baxay kadibna dib u soo laaban waayay. haddaba shirkadaha waaweyn ee soo saara waxyaabaha la isku qurxiyo waxay sugayeen inta uu Robert badeecadiisa suuqa keenayo haddii uu helo lacag faa'iido ah oo macquul ah waxa u qorshaysan in ay suuqa si degdeg ah ku soo galaan isla markaana la wareegaan macaamiisha halkaana uu Robert suuqa ugu baxo asigoo khasaaray. laakiin Robert waa nin soo jeeda isla markaana dareensan qorshayaasha mustaqbaliga ah ee wata khatarta weyn sidaas darteed Robert dhankiisa wuxuu la yimid qorshe cajiib ah oo dhammaan shirkadihii waaweynaa kaga adkaaday kuna qasbay in ay suuqaani muddo 2 sano ah bannaanka ka joogaan. Robert ayaa sanadkii 1980 dhammaan wilaayadka Mareykanka ku soo daadiyay saabuuntii dareeraha ahayd wuxuuna hal sano gudaheed iibka badeecadiisa ku gaaray $40 milyan. haddaba markii ay arkeen shirkadihii saabuunta Robert oo suuqa la kala boobayo
waxay go'aansadeen in ay Robert suuqaani cusub ka soo daba galaan isla markaana xoog kaga saaraan. Laakiin markii ay bilaabeen in ay soo sameeyaan saabuun dareere ah kadibna ay suuqa ku soo fasaxaan, waxay waayeen caagadii yarayd ee lagu shubi lahaa saabuunta dareeraha ah. waayo shirkadahani waaweyn ee wax ismooday ee ay ugu horeyso Johnson & Johnson iyo kuwa kale waxay ku dhaceen dabin cajiib ah oo u dhigay Robert, ka oo ah markii uu arkay Robert in uusan ka badbaadin shirkadahani ayuu Robert heshiis 2 sano ah la galay labadii shirkadood ee sameynayay caagada yar ee lagu shubo saabuunta dareeraha ah. wuxuuna Robert heshiiskaasi kula galay labadani shirkadood in ay u sameeyaan hal mar 2 sano wixii caag ah ee ay sameyn lahaayeen. wuxuuna heshiiskaani ku kacay $12 milyan. waxayna Robert si tartiib ah ugu wareejiyeen $100 milyan oo caag. kadibna wuxuu Robert mashruuciisa ganacsi ku sii xijiyay xayisiin oo u sameeyay saabuuntiisa, waxaana dhehdaani Robert kaga baxay $8 milyan. sababta Robert oo sidaan u sameeyay ayaa ahayd in uu howlgab ka dhigo shirkadaha doonaya in ay suuqaani soo galaan kadibna kula tartamaan. Robert ayaa suuqaani si xeeladaysan ku haystay muddo 2 sano ah, waxayna iibka saabuuntiisa muddadaani 2 sano ah ku gaartay $96 milyan. markii la soo gaaray sanadkii 1987, Robert wuxuu qayb ka mid ah xuquuqda wax soo saarka shirkadiisa ka iibiyay shirkadda kale ee lagu magacaabo Colgate, wuxuuna ku gaday $61 milyan. 2 sano kadib, Robert wuxuu shirkadiisa ka iibiyay shirkadda kale ee lagu magacaabo Unilever, wuxuuna ku gaday lacag lagu qiyaasay $380 milyan. hadda maanta inta badan kulliyadaha dhaqaalaha ee jaamacadaha caalamka waxaa lagu dhigaa oo lagu daraaseeyaa qorshihii cajiibka ahaa ee uu Robert kaga hortagay shirkadihii waaweynaa ee ka lacagta badnaa ee rabay in ay Robert suuqa xoog kaga saaraan kadibna kala wareegaan macaamiisha cusub.